السلام عليكم جاليال برنامج كله هو يقان التطبيق حالات كسر هذا برنامج كان واحد يكون تصدقنا tips and tricks حالة يرير أو ناس أرانيو نورمالميت كنا فعيان هذا هرام قبل عبنا تين أول رسمات وحنا قلنا جوجل وحس أرانيسان هران قلنا نقاني بحية هذا جاليال جوجل قام كردوا حلقة بارة هذا بدي كل دارين مهيو تلاو أنا وقلنا تلاو هذا كواب تصالحان وحربته ويب سايت كان حلقة بهانا هاي alaab gooni ah tusaale ahaan kale website waxa loo yaqaan eBay la hajira eBay markaan galno caadiyan ebay.com hadaan dhaho wuxuu isoo saaraya alaabo iyo kabo iyo aduun iyo electronic nooc walba ku jira nooc walba ayaa ku soo dhameystiran laakiin waxa laga yaabaa inaan awoodin inaan ismarkiiba helo hadaba maxaan sameyn karaa hadaba qaabka ugu dhaqsaha badan u heli karo waxa weeyaan trick yar ayaan isticmaalaya taas oo ku shaqeeya Google waxaan leeyahay kood hore site ayaan qorayaa iyo laba dhibcood iskor saaran ka bacdi waxaan qorayaa website kan u baahanahay ebay.com ayaan leeyahay space ayaan taabanaya laba calaamad ayaan furaya dhexda ayaan imaanaya waxaan qorayaa best salaan telefoon ugu fiican baan rabaa iPhone yani tan waxay fududeynaysaa website-ka eBay best iPhone oo ku jira telefoon ugu fiican in dhaqso igu soo saaro markiiba markaan dhaho click aan dhaho linkiyada igu soo baxaya kulligood waxa weeyaan isla eBay weeyaan sidoo kalena wuxuu ii soo saarayaa iPhone ugu fiican markaas ama lagu rating ka badan yahay ama algorithm website-ka uu ku dhisan yahay ugu fiican yani wax walba ay tahay sana ku raadin kartaa su'aalahan kale meesha ay ku qoran tahay eBay oo hadda aniga aan doortay ayaa website-ka arabti gelin kartaa su'aalahan kale Amazon hadaan dhahno kale oo hadda ku dhufano sidoo kale wuxuu soo saaraya best iPhone hadaan mid kamid ku sii dhufano waxaanu tusi doonaa gudihiisa midka aan sii gali karno hadda waa trick degdeg hadda rabto website gooni ah ina wax gooni ah ka raadisid sidaan kale ayaad u qori kartaa trick xiga waxa loo yaqaanaa range waxa raadinayaa taariikhdaas ila taariikhdaas marka English baan ma aqaano waxa raad su'aalahan kale madaxweynaha Soomaaliya kale inaan ogaado magacadooda laakiin inta dhii lahaa English ku qor how many presidents has ruled Somalia since inta waxa dheer gelin lahaa waxaan qorayaa bilis Soomaaliya waxaan qorayaa kaliya waxaan qorayaa su'aalaha 1960 okay laba dhibcan qorayaa sanadka hadda la joogan qorayaa 2024 waxaan leeyahay Somali presidents madaxda Soomaaliya inta markaan qor automatic jawaabta ugu horeysa oo Google soo tufayo waxa weeyaan madaxda Soomaaliya ee ilaa xilligan ilaa soo talisay dalkan aan ku bedeli karaa hadda US president dhaho madaxda Mareykanka oo sanadka ilaa list ugu horeeya oo website itusi kara xogta ay siinay tusaya imagine yani laba tiro hadda u dhaxayna laba dhibic u dhaxaysiino wuxuu loo yaqaan range yani taariikhdan ilaa taariikhdan waxay dhacay si baad leedahay adoo English fara badan aan adeegsan waxaad kala oranayo idina faaysa okay qaab kale hadda waxaan rabaa inaan tusaalahan buug raadiyo macluumaad raadiyo laakiin haddaan qor tusaalahan artificial intelligence tusaalahan buug quseeya artificial intelligence ayaan rabaa inaan raadiyo garaadka maamulka laakiin marka ku dhufto wuxuu soo saaray website kala duwan Wikipedia this and that Britannica laftigood Wikipedia kala ah wuu soo saaray laakiin anigu waxaan rabaa inuu buug isoo saaro waliba buugga badan waxa aragtay Facebook marka buug wax soo dhigtid PDF ma ku helaysaa ustaado iyo xal kala duwan lagu soo weydiinayo marka sidoo kale Google waxaan ku leenahay PDF ma ku haysabaan leenahay hadda waxaan sameeynaa qaacdo loo yaqaan file type saana loo qoraa yani galkan noociisu waa PDF markaan saan u qoraya file type laba calaamad PDF markaan qoro oo ku dhufto automatic wuxuu soo saaraya ciwaanka AI ama artificial intelligence oo buugaag ama PDF ka uu soo rada u jeedaan jaamacadu weeyay University of Cincinnati Mareykanka ku taala introduction ay ka sameeyaan artificial intelligence ay soo baxayso waa macluumaad dhameystiran oo maqaalo ah ama waa book ama whatever ay tahay soo hadda kan idin soo inoo muuqan doonto kale waan arki doonaa yani automatically wuxuu ku fududeynayaa in aad filekii sida aad rabtay PDF ka kugu soo baxo hadaba waa kan si noo soo baxday sida meesha nooga muuqato waa introduction waa presentation jaamacadu sameysay oo dhameystiran oo PDF haddaan ka laabano kuwa kale sidoo kale waxa kada file type waxa bedeli kara waxyaalo kala duwan haddaan PPT oo kala dhaho PowerPoint asagoo isoo saaro leh asagoo la bixiyay oo animation ah oo kala duwan ayuu ku soo isla ciwaankii oo PDF bedelkiisu ahaa oo ka duwan ku soo hadda kan oo kale slide share waa sida ugu caansan ee bixiya slides hadda kan waa slide caadi weeyaan ki jaamacadaha ku arki jirteen weeyaan oo diyaarsan file-kaad qoraysaa markaa qortid gadaal waxa ka raacinaysaa mawduuca file type noocu yahay asna wuxuu ku soo saaraya iyadoo degdeg ah oo nooca rabtay waqti badan aan ka qaaday
trigger xiga waxa weeyaan tusaalahaan kale caadiga waxaa jirta erey baan garan waaya perplexity oo kale tusaalahaan kale perplexity marka meaning oo kale ku raadin karaa ama what does it mean oo kale jirta maxaa laga wadaa maraan ku dhufto xog dheer u soo saaraya tusaalahaan meesha ugu horeysa u soo tufay laakiin qoraalkan dheerarka badan intaan qori lahaa bedelkeeda waxaan qorayaa define laba calaamad ka hormarnaya oo ku dhufanaya isla meesha keenaya define markaan ku qoro oo automatic ereyga geliyo wuxuu ii soo saarayaa sharaxaad soo degdeg ah su'aalan kale problem oo kala gelinaya si noo fudaato hore kaaga soo tufaya يعني meeshaan gelin lahaa wadaasid mean waxa la dheera gelin lahaa automatic define laba calaamadood ereygan raaciyo automatic kan wuxuu ii soo tufaya si degdeg ah sharaxaadiis oo English kooban hadda toos ana ka raadin karo luqado kala duwan taasna waa trick kale oo oranayo waxaad ka fadi kartaa trigger xiga waxa weeyaan tusaalahaan oo kale waxa rabtaa inaad ogaatid mawduucyada kamid tusaalaha waxbarasho oo kala rabaa inaan ogaado website kala duwan qoraalada ay qoreen ciwaan ay uga dhigeen waxbarasho ay ku jirto يعني مقالوينك الدنيا لا قري سياسات وحل كل دول مد وحبرشة ka qoreen ma jirtaa طبعا وقابك u dhaqsaha badan ee Google waxa ku raadi laakiin wixii arbanaanka qaarkeena weeyaan su'aalan kunta waxa la dhahaa in title يعني title ka hadii ku jirto waxbarasho website kaas xogtiisa hore iga soo dhig su'aalan waxa ugu horreeya soo baxay waa UNHCR Egypt mid ku taala waxbarasho mawduuc ka diyaariyeen oo dabcan af Soomaaliya bahar inaga soo baxday waa maqaale ay qoreen qoraal ay diyaariyeen qoraalkaas oo ciwaankiisu yahay sida halkan ay kaga muuqato waxbarasho ima u sadhibin meel kale ima dir xagga ima dir waa qaabka u dhaqsaha badan ee mawduuc ku raadin kartaan title kasta oo ay ku jirto xogtani iyo soo taf adoo dhahayo kale waxa kada haddaba jaale intaas waxay ahaayeen dhowr trick oo ka kooban oo is oranayo markaad Google wax ka raadinaysaan wadina faacayaan intaan iyo in ka badan ayaa jirto hadda Google haddaan ku qorno Google search shortcuts haddaan qorno website kala duwan ayaa noo soo baxaya haddaan image ka doorano kale qaab kala duwan oo loo sameeyo ayaa noo soo baxaya laakiin kuwan waa ku ugu badan is oranayo ugu soo laabashada badan oo is oranayo wax ka fadi kartaan haddaba saaxiibadan uga faa'iidee barnaamijkeena ku xirnaa assalamu calaykum